waxa aan ahay ayuu leeyahay nin dhalinyaro ah waxaan qabaa ayuu yidhi oo ii dhaxda gabar miskiin ah oo aad iyo aad u wanaagsan go-aan qaadashadeeduna ay aad iyo aad u yar tahay waxaan isleeyahay ayuu leeyahay xaaskaygu waa miskiin laakiin ma ahan ayuu leeyahay qof xun waxaa la dhashay ayuu leeyahay 3 gabdhood 3daasi gabdhoodna waxay ku hayaan ayuu yidhi dhibaato weyn xaaskayga iyo aniga sidii aan u wada jiri lahayn mararka qaarna anigoo gurigayga jooga ayay boolis wacaan iyagoo leh waxa uu dilay xaaskiisa marka aan weydiiyana waxay tidhaahdaa war adigu nin xun ma tihid waanan ku jecelahay laakiin aniga walaalahay kuma rabaan si aan yeel ayaan la ahay ayuu yidhi gabdhuhu waxay ku xiran yihiin qolalka khayrka iyaduna waxaan rajeynayaa inay hadda ku dhegaysanayso sheekh alfaadil maxaad nagula talinaysaa ayuu ku leeyahay falyatafadal mashkuuran wamaajuura الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد كلمة أنا كلها هي وحيتها هي إن اللي يرى أبانا هاي جبر مسكين بانقبا جبر ونكسم بانقبا جبر ونكسم آيات كذي سيدا درادة أفهم ولا مغلا مالي مغلا نعم شيخ ولا مغلا شوفي عن شيخ عبد الحق بارك الله يقصوا قالي مركز جزاك الله خير waxaan kula talin lahaa horta xaaskaaga isku day inaad meel gooni ah la degto oo aad ka fogeyso arrinka siduu sheegayay saas u soo qortay ee walaalaha aad ugu soo gudbisay hadduu arrinku noocaa yahay oo uusan wax waswaas ahoo kale iyo masayr iyo wax lamida uu ka dheer yahay oo gabadhii ay jiraan gabdho 3 ah oo ay walaalo yihiin oo dhib kugu haya oo kaa duminaya oo mararka qaarkood boolisku ugu yeeraya haddii ay jiraan waxaad yeelaysaa horta marka koowaad adigu la heshii gabdhaha ay gabadhan walaalaha yihiin adigu la heshii adiga iyo gabdhaha yaan la idin kala turjumin maxaa yeelay gabadha ayay walaalo yihiin oo ma kala gu'i karaan dhinac marka laga eego dhinac kale caruurtoodu habaryaro ayay isu noqonayaan adiguna ehelkii iyo familkii ayaad ka mid tahay marka la doonayo mushkilad in daawo loo helana salka ayaa laga soo unkaa oo salka ayaa laga soo dhisaa oo aasaaska ayaa laga soo adkeeyaa marka horta gabdhahani si wanaagsan oo la fadhiiso oo si wanaagsan intaad u wada hadashaan u sheeg inaad xaaskana jeceshahay ayagana aad jeceshahay reerkaa inuu dhismana ay faa'iido kulligiin inay idinku wada jirto horta u sheeg waa marka koowaad marka labaad haddii aad arrintaa ku guulaysan kari weydo isku day xaaskaaga inaad meel gooni ah la degto oo adiga gooni kuu ah oo aad la fogaato oo aad kala durugto isku day biidnillaahi tabaaraka watacaala waxaa laga yaabaa hadday gabadhu tahay gabadh macaan oo ku jecel inaad labadiina isfahamtaan ayagana ay xuduud u samaysaan laga yaabaa gabdhahana waxaan dhihi lahaa dacwada laydinka soo gudbiyey ee ninkaa idinka soo gudbiyey gabadhiina qaba sida uu u soo gudbiyey walaalaha loogu soo gudbiyey haddii ay saa u tahay waxaad yeelaysaa ilaahay ka baqa tabaaraka wa tacaala oo gabadhaasi inaad ninkaa ku kaalmaysaan oo aad ku gacan siisaan oo siduu reerkaa u dhismi lahaa aad ku garab istaagtaan buu caqligu iyo sharcigu iyo waaqicuba intaba keenayaaye maanta walaashiin oo la furay oo uu reer ka dumay soo culays idinku soo kordhay ma aha soo caqli yari ma idinma noqonayso marka gabadha ha ka duminina reerka haddii uu wiilku gabadha si xun oo la dhaqmo waa ninka walaashiin qabo oo carruurta habaryarta u tihiin aabbahood weeyaane laftiisa dhexgala oo ha ka fogaanina oo la taliya oo u nasteexeeya oo haddii uu si xun gabadha oo la dhaqmo u sheega oo waxaad ku dhahdaan war sidaa gabadha loolama dhaqmo waa miskiinnimadeeda ha oga faa'iidaysanin miskiinnimadeede annaga u joogno oo xaqeeda in lagu ciyaaro ma ogeline gabadha dulmiga ka daa ku dhaha haddii uu markaa uu diido u bandhiga cidda idinka sarrayse idinka waaweyn ee waalida iyo culumo ah iyo cuqalo ahoo meesha jooga markaasi ayagaa tasarufka iyo nidaamka iyo maamulka yeelan doona biidnillahi tabaaraka wa tacaala waa hadday tahay shay cad oo aan loo dulqaadan karin oo ay reer ku dhaqmi karin oo gabadha jirkeeda iyo caqligeeda iyo diinteeda soo gaaraya hadduu yahay ama hadduu yahay khilaafka nin iyo xaas walba u dhaxeeya
hadda idinka bal raggiina un ku filaada oo raggiina un ku adkaada oo carruurtiina un haysta maxaa yeelay reer meel degan oo khilaaf uusan ka dhex jirin haddee ma jiraan marka gabadhaa nin iyo maxay isu khilaafeen iyo muxuuse isu yidhi lama doonayo inaad ka shaqaysaan gabadhana waxaan leeyahay waa gabadha la yidhi waa gabadh miskiinada miskiinnimadaadu yayna ku gaadhsiinin inuu reer kaa dumo miskiinnimadaadu yayna ku gaadhsiinin wax kasta oo ninka idin dhex mara inaad walaalaha u gudbiso may isku day inaad isku soo jiido xarigna u noqoto hamsatulwasilna u noqoto ninkaaga iyo gabdhaha walaalaha inaad hamsatulwasil u noqotaa lagaa doonaya laakiin miskiinnimadaadu inay gaadho wixii xarig aad isku dhahdaanba inaad ayaga gaadhsiiso ayaguna ay dhahaan arrintaasaanu xallinaynaa xalkina uu noqdo boolis in loogu yeero say sheegayaan mararka qaarkood ama uu reer kaga dumo arrintaasi macquul ma aha mantiqna ma aha marka ilaahay ka baqa tabaaraka watacaala kana fiirsada afcaasha noocan oo kale ah waan adkaynaya ikhwaani mar walbana waan ku celceliyaa arrinkaa u fiirsada walaalaha su-aalaha weydiinaya qaabkaad ugu soo qorteen bay horta iyagu wax ii weydiiyaan laakiin qofka wax soo qoray siduu wax u sheegay hadduu yahay weye anu waxaan dhahayo mar walbaba maxaa yeelay anu maxkamad ma fadhiyo oo hadda maxaa la yidhahdaa kana ma maqlayo kana ma maqlayo waxaa laga yaabaa qofkan inuu waxan buunbuurinayo waxaa laga yaabaa inuu been abuuranayo waxaa laga yaabaa inay runtii tahay waxaa laga yaabaa arrintu inayna halkaaba gaarsiisnayn kulli qadiyad kastoon ka jawaabaynana waddadaas bay maraysaa gabar baale ninkayga waxaasu igu sameeyey markaasaan ka jawaabaynaa macnaheedu ma aha sida ay sheegtay inaanu aaminay inuu arrinku yahay waxaa laga yaabaa inuu ka duwan yahay nin baa laga yaabaa inuu yidhaahdo haweenaydii baa saa igu samaysay waan ka jawaabaynaa oo gabadhi waxaan leenahay ittaqillaha ilaahay ka baq laakiin macnaheedu ma aha inaan aaminay inay sidaa ay tahay waxaa laga yaabaa siduu ninkii soomaaliyeed yidhi haddaad aragto nin ay calooshu ka soo jeedo oo uu yidhahdo mataqaana ninkaa qofkaasaa i dilay ha xukumin waxaa laga yaabaa inuu kiiba dilayba kii caloosha isaga ka dooxay inuuba nafta ka qaaday baa laga yaabaa waxaa laga yaabaa inay noqoto ayadaana ooyi ayadaana geela cuni oo cabaadi ayadaa fallaadha intay kugu dhufato oy siibatay haddana ooyi inay tahay baa laga yaabaa marka horta ila tali markaan ka hadlayno si wanaagsan ha loo fahmo niyad wanaagsanna ha lagu qaabilo waxa aanu sheegayno waa sida aanu wax u maqalnay laakiin maxkamadii ma fadhino walidaalika baan in badan waxaad iga maqli doontaan sidaa su-aasha walaalaha loo soo gaarsiiyey haddii uu warku yahay marka waxaan aad u rajaynayaa in arrinta aad iyo aad loo fahmay biidnillahi tabaaraka watacaala marka gabadhay miskiinnimadaadu reerku yuusan kaaga dumine reerkaaga dhaqo go-aan fiican qaado waxaad bixin karto oo hadal ahood gabdhaha gaarsiin karta iyo wixii kale wixii reerkaaga duminaya iyo wixii kale waa inay kuu kala socnaadaan adiguna isku day inaan gabdhaha lagaaga hoos marin gabdhahana waxaan leenahay isku daya ninka walaashiin qaba inaad la xidhiidhaan oo wixii xumaana aad ka celisaan kulligii waxaa idin leeyahay isjeclaada oo qaraabaa tihiin oo ehel baa tihiin oo carruurta qurquruxda badane oo aad habaryarka u tihiin asna uu u yahay aabbaha ayaa idinka wada dhexeeye waddan khatar ana waad ku dhex jirtaane waxaad aad iyo aad ugu dadaashaan islaaxa iyo siday wax ku toosi lahaayeene ha ku dadaalina sidii ay wax ku dumi lahaayeen marar badanna waxaan leeyahay soomaaliyay aanu baranno fannu idaarati alkhilaaf sida khilaaf loo xalliyo aan baranno inaan iskhilaafna waa naqaanaa laakiin qaabka khilaafka loo xalliyo iyo waddooyinka khilaafka loo xalliyo iyo duruqda loo soo maro iyo nooca loo xalliyo iyo siduu khilaafku u kala wen yahay iyo maxaa horta khilaaf la yidhaahdaa iyo daqiiqadee iyo saacadee iyo makaankee iyo meeshee iyo maxaa la yidhahdaa kayfiyadeeda loo xalliyaa waa arrin fan gooni ah iyo dawraad gooni ah iyo tacriim gooni ah u baahan weeye sidaa daraaddeed waanu iskhilaafno waan kala tagnay baanu naqaanaaye waxaa jira waanu iskhilaafnay waana la xallin karaa qaabka wax loo xalliyana qaabab iyo noocyo ayay leedahay ha la daraaseeyo oo ha la barto ayaan dhihi lahaa wallahu aclam ما شاء الله جزاك الله خير شيخنا الفاضل وأحسن الله إليك وغفر الله ذنبك شيخنا الفاضل الله سبحانه وتعالى سيدي وأبد بادي نبي الله موسى عليه السلام إيو
intii xaqa ku raacday alla subxaanahu watacaala sidaasi oo kaleeto ha u badbaadiyo awlaadaada xaasaskaaga iyo naftaadaba insha allahu biidni illahi kariim aakhirana subxaanahu watacaala ha kula soo saaro maca nabiyiina wasadiqiina sheikhuna alfaadil